sida dowladaha lagu ogaado saaxiibtinimadooda waxaa ka mid ah hadda Israa'iil Somaliland waxay u ogolaatay nidaamkeeda e-fiisaha ee online-ka ayay ku dartay Turkigii oo kheyraadka Soomaaliya boqolkiiba 95 qaatayna Soomaaliya kuma uusan dirin wadamada e-fiisaha ka dalba karo marka halkaas waxay ku tusay boqolkiiba 95 ayaa la yiri laakiin inuusan sii doonin Soomaaliya xataa 5 oo qaadan doono kheyraadka Soomaaliya wax kastana oo ku takrifali doono dadka Soomaaliyeedna ay ku dulmanaan doonaan dal noocaas oo kheyraadkii wax walba la siiyay xataa u qoori waayay inuu ku daro nidaamkoodii e-fiisaha Soomaaliya halka Israa'iil ay ku darto Somaliland nidaamkeeda fiisaha taasoo muujinaysa ixtiraam iyo qadarin loo hayo dowladda Somaliland laakiin Turkiga uusan u hayn Soomaaliya wax qadarin ah isagoo dekedihii qaatay kheyraadkii boobay wax kastana samaystay Soomaali si kastana ula dhaqmay dadka Turkiga degan Soomaaliyeed ee dhulka ka gatayna guryahoodii la wareegay wadankana ka ciiriyay runtii waa nasiib darro